قصة عجيبة أيانا دين هيا مانتا بس أنت أنا قصة وجذا قلنا كسر دو channelka هدي أكو عصب تاعي سبسكرايب سارو جنبالك أنا فرصي مقالة كان أصوري مرة بيكون سو جارن maanta waxaan idin hayaa qiso cajiib ah qisadaasna waxay u dhacaysaa sidatan hadda ka hor waxaa jiray nin ay isugu tageen saddex arin oo dhibaato ku noqday waa saddex wax oo laga ducaystaba ilaahay naguma rido dhamaanteenba qisada waxay u dhacaysaa ninkan waxa isugu tagay aqoon la'aan ubad la'aan iyo maal la'aan ama xoolo la'aan ninkan saddexdan waxa isugu tageen oo xoolo la'aanta aqoon la'aanta iyo ubad la'aanta ayaa wuxuu damcay inuu xal u raadiyo arintiisa kadib markii dadku uu waraystay waxa loo sheegay inuu jiro nin caaqil ah saddex su'aalood kaaga jawaabi kara hadii aad weydiisid macnaha sida ay tahay saddex arin ba u sheegay saddexdaas arin xalkooda ayuu ku sheegay ninka caaqilka ayaa loo tilmaamay waxa la yiraahdaa caaqilka tuule hebel degan u tag asaga ku xalinaya dhibkaaga markii sida loogu sheegay saddex su'aal ayuu wataa ninkan wuxuuna rabaa inuu caaqilkaas u tago su'aalihiisana uu hordhigo xalna uu ka helo safar ayuu galay wuxuu damcay inuu dhankii ninka caaqilka ha aado intuu ku sii socday safarkiisa oo dhexda uu sii maray wuxuu la kulmay dad meel tuulan oo dhulka qoday uu ku leexday wuxuu yiri maxaa qaldan oo jiro dhib ah waxay dhaheen ninkaana u jeedid ayaan dhulka ka soo faageynaa oo aan dhulka ka soo bixinaynaa mar walba dhulka ayaa sidaas ula dumay waxay dhaheen dhibkan ayaan haysto ninkaana mar walba sidaan ayaan dhulka uga soo faagnaa oo dhulka ayaa la dumay waa la iswareystay adiga maxaad ahayd ayaa la yiri asagana dhibkiisa ayuu sheegtay wuxuu yiri niyo anigana saddex arin ayaa ay haysato oo ah aqoon la'aan ubad la'aan iyo maal la'aan ama hanti la'aan saddexdaas waxna waxa la ii sheegay nin caaqil inuu jiro oo tuulo hebel degan ninkaasna saddexdan su'aaloodii aan weydiiyo iga jawaabi karo waxay dhawaniyo waa duceysan tahay anagana dhibkan ayaana haysto dadka masaakiinta meeshan joogaan nahay dhibkan hal su'aal noogu dar oo laba inta adiga qaadatid halka midka saddexaad anaga toonada noogu buuxi oo noo weydii arintan xalkeed يعني لبس سؤالات ماشي صدح سؤالات أودتي هل كتنازل أنا جن أقولي باسك أي كذا نينكي كموسن ديدن كمونا يلهم وإسكتي وسيس عادي أنتوا لحظة سيمر أي حدنا وحول كل ماي نمال علا أفديه وضد لحظة نم فديه أيو أتجي نين كاسنا ماشي وفديه أي بوش لاجت ولا سي وضد لحظة ده نينك أيو كل لحظة ورستي ورنيو محاهد أيو يري حيرنيو دولك أي يقول دقي هل كان أيانا سيد أنا أجيت له يجد سي بوش كان وهل كان أيام بكسوجان هاي كمان كعكر دولك أي يقول دقي وحير أديك محاهد حاجة أسعته وحوش يجي إنه يهاي نين كنوع عاسي نوع عاس arintan cilada ay haysato saddex dhibaatooyin ay haystaan oo ah maal la'aanta hanti la'aanta iyo ubad la'aanta waxa kale loo sheegay in uu jiro nin caaqil ah oo saddexdiisa su'aalood haduu weydiiyo uga jawaabi kara halkaas ayuu u socday markuu sida ninkii uu xogta u siiyay ayuu yiri warniyo waa duceysan tahay ilaahay ayaa ka soo diray aniga dhulka ayaa igu dhagay ninkaas caaqilka hadii aad u tagtid hal su'aal ma igu dari kartaa su'aalahaaga oo adiga laba inta qaadatid midka saddexaad maadaama ninka hal su'aal oo afaraad uusan kaaga jawaabin oo saddex kaliya uu ka jawaabi karo hal su'aal aniga igu dar ayuu yiri ninkii kamuusan diidin kamana yeelin adiga asoo ka laba labeena ayuu ka tagay oo iskaga sii socday sababtoo ah nin meel u cadiyay asagana dhibaatooyin haystaan uu iskaga tagay haddana safarkiisa ayuu sii watay intuu dhexda sii maray haddana wuxuu la kulmay tuulo holceysa ayuu kor ka arkay tuuladii holceysay ayuu ku leexday markuu ku leexday dadku uu wareystay meesha maxaa ka dhacay ayuu yiri tuuladan waxa la yiri bil kasto hal mar ayay holcadaaba bal yiri dab ayaa iska qabsada bil walba hal mar dhibaataas ayaana ka jirta tuuladan asagii waa la wareystay ninkii adiga xageed naga soo gashay niyo maxaad ahayd wuxuu yiri aniga niyo ninkaas baan ahay halkaasaan ka imid dhibaatooyinkan ayaa haysto saddexdaas dhibaato ayaa haysto waxaana la ii sheegay in caaqil inuu jiro oo iga jawaabi kara saddexdeeda su'aal hadii aan weydiiyo waxa la yiri niyo waa duceysan tahay ilaaha noo ka soo leexiyay anaga dhibka ayaan haysto tuuladan mar walba hal mar ayay holacdaa u tag ninka caaqilka ah walaalow anagana hal su'aal noogu dar su'aalahaaga oo adiga saddex meesha wadatay laba ka dhigo halka tanaasul anaga noogu bedel booskaas noo soo weydiin ninkaas wuu iskaga tagay ayagina sidoo u socday ayaa wuxuu u tagay ninka caaqilka ah ee loo tilmaamay ninka caaqilka ah ee loo tilmaamay markii uu tagay waxa dhacday ninkii inuu hor fadhiisto oo uu dhaho caaqilow arinta ayaan kuugu imaaday waxa ay haysato saddex arin oo la yaab leh saddexda arin oo ah hanti la'aan ubad la'aan iyo aqoon la'aan saddexdaas arin ayaan kuugu imaaday inaad iiga jawaabtid oo iiga jaahil bixis balse waxa jirto ayuu yiri intaan dhexda soo marayay saddex arin oo kala duwan ayaan arkay nin dhulka la dumahayo oo laga soo faqaayo sidoo kale nin asagana dhulka ku dhagay ayaan la soo kulmay ayuu yiri sidoo kale waxaan soo arkay tuulo bil walba hal mar holacdo oo dab uu qabsado bil walba saddexdaas arin ayaan soo arkay ayuu yiri saddexdan la isku daray waa lix su'aal ee caaqil oo lixdaas su'aal iga jawaab ayuu yiri caaqilku wuxuu yiri saddex su'aal kaliya ayaan ka jawaabi karaa lix su'aal kaaga ma jawaabi kari waa inaad saddex weydiisaa kaliya ama saddexdooda i weydii ama saddexdaada i weydii ama isku qas su'aalaha oo kuwaaga iyo kuwoodaba saddex un ka soo saar sidaasan i weydii aan kaaga jawaabay wuxuu ku fikiray ama uu go'aansaday markii dambe in saddexda su'aalood ee dadka ay soo weydiiyeen oo dhexda uu ku soo arkay inuu ninkan weydiiyo sababtoo ah wixii asaga uu watayba waxa kala darnaaday waxa uu soo arkay sababtoo ah waxyaabaha uu soo arkay ayaa ka weyn
asaga tiisa wax fudud ayay noqotay markuu isbarbar dhigay waa nin tiisa ka tanaasulay qof kale tiisi door biday saddexda su'aal ayaa looga jawaabay waxaa la yiri tuulada holceyso aad aragtay boqorka maamulo waxa u jooga gabdho qurux badan oo guur gaaray gabdhahaas guurka gaaray ha u guuriyaa la yiri oo waa inuu u guuriyaa gabdhahaas kadibna xalka sidaas ayuu ku jiraa waa yahay midda koowaad xalkeeda waa la hayaa ninka wuxuu yiri dhulka ku dhagay oo aad arkaysay buu yiri ninkaas cilmi iyo aqoon ilaahay baa siiyay cilmi iyo aqoontiisana dadka ha uga faa'iideeyo oo dadka ha baro xalkiisana sidaas ayuu ku jiraa oo sidaas ayuu dhulka uga foqaya midka saddexaad ee aad aragtay buu yiri oo ah ninka dhulka la dumayo oo laga soo faqay ha loo daayo yiri irsaaqad ilaahay uu qoray ayaa dhulka ku jirtay ha loo daayo xoogaa kadibna hala arko wuxuu kala soo laabto dhulka ninkii saddexdii arrin uu sheegay jawaabahooda farta ayaa laga saaray wuu soo laabtay wuxuu ku soo laabtay tuuladii gubanaysay boqorkii ayuu u tagay wuxuu yiri boqorow gabdhahaaga guur ayay gaareen ee waa inaad u guurisaa halkana sidaas ayuu ku jiraa baa la yiri caaqilka markaan soo wareystay kadib ninkii boqorka maamulayay tuuladii wuxuu yiri gabdhahayga waa kuwaana buu yiri intuu soo safay midda aad rabtid oo adiga kuula qurux badan kala baxa ayuu yiri gabdhahan wuu fiiriyay ish ayuu mariyay kadibna midda ugu quruxda badneed ayuu ka doortay ninkii gabar ayuu sidaas ku helay bilaash waa yahay waa u soo laabanayaa buu yiri gabadhayda ii sii haya uu ka sii socday wuxuu u tagay ninkii dhulka ku dhagay ayuu u tagay wuxuu yiri ninyahow caaqilka waan u tagay waxaana la yiri ninkan cilmi aqoon ilaahay ayaa baray ee cilmigiisa aqoontiisa dadka hooga faa'iideeyay oo ha bar ninkii wuxuu yiri ka waran haddii aad noqotid qofka ugu horeeya oo aniga iga aflaxaba oo cilmigayga iyo aqoontayda ka aflax haddii aad noqotid ka waran buu yiri oo adiga aan kugu bilaababa ardayga koowaad aan noqotid waa yahay ayuu yiri wuu ka sii tagay wuxuu u tagay ninkii dhulka laga faqay oo dhulka uu la dumay ninkii wuxuu yiri tuuladii ayuu la hadlay dadkii wuxuu yiri ninkan dhulka wax irsaaqad ilaahay uu qoray dhulka ku jirtay u dhaafa xoogaa kadibna wuxuu kala soo laabtay arka ninka xoogaa ayaa dhulka loo dhaafay kadibna wuxuu kala soo baxay laba sanduuq oo dahab irsaaqadii loo qoray kaas ayay labada sanduuq oo dahabka maadaama ninkan uu xalki keenay hal sanduuq asagii ayaa la siiyay halkii sanduuq ayuu la soo baxay wuxuu ola tagay boqorkii gabadha siiyay gabadhiisii ayuu soo kaxaystay sanduuqii lacagtaydna wuu wataa gabadhiisina wuu wataa la soo siiyay wuxuu ku soo laabtay oo uu u yimid ninkii aqoonta lahaa cilmiga lahaa ee wax uu ka baran lahaa halkaas ayuuna tagay oo uu uga faa'iideystay aqoonta ninkaas uu lahaa oo halkaas ayuu aqoonti ku helay ninkan saddexdu waxa uu raadinayay wuxuuba ka dhexelayba saddexdan arrin oo kale sababtoo ah hanti la'aan ayuu ahaa oo hanti ayuu helay hadartan oo sanduuq dahab ayaa la siiyey sidoo kale ubad la'aan ayuu ahaa waxaa la siiyey gabar uu guursado oo ubad uu ka dhalo sidoo kale wuxuu ahaa aqoon la'aan oo aqoon ma lahayn waxaana la baray aqoontii uu rabay saas darteed wuxuu ku helay saddexdii uu raadinayay xalkuu u raadinayay wuxuuba ka dhexelayba saddexdan arrin oo xalkooda uu soo helay ayuu ka dhexelay ulajeedada sheekadan ama qisadan waxay tahay in mararka qaar adiga xalkaaga uu ku jiro dad kale xalkooda mararka qaar haddii aad ka hormarisid naftaada nafafka kale waxaa laga yaabaa wixii adiga aad raadinaysay inaad ka dhexeshid xalkaas ama meeshas inaad ka dhexeshid ayaa laga yaabaa marka isku day in aadan mar walba aadan noqonin selfish ama qof naftiisa kaliya ka fikiro waxaan filayaa inaad ila fahanteen sheekada qisada intaas ayay ku eg tahay waa ku mahadsan haddii halkan aad soo gaartay muuqaalka like saar si dad badan uu u gaaro asxaabtaadan la share gare channelka haddii aadan weli subscribe saarnayn fadlan subscribe saaro gambaleelkana furo si muuqaalada halkan aan soo dhigay kuu soo gaaraan waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka intaan ku kulmayno muuqaalka xig waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo